السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasha qiimaha badan ee ku xiran kanaalka Hanaashi, waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dalka Brunei. Dalka Brunei wuxuu ku yaalaa qaaradda Aasiya, gaar ahaan koonfurta bari ee Aasiya. Waa dawlad madax bannaan oo boqortooyo ah. Afka Carabiga waxaa lagu magacaabaa Daarusalaam, daarta nabadda. waxayna ka mid tahay Brunei dawladaha ugu yar caalamka. Dawladda Brunei waxaa la aasaasay qarnigii 7aad. waxaa magaca Brunei loo bixiyay qarnigii 14aad. macnaha ereyga Brunei macnihiisu waa badma. saldanada Brunei, suldaanka ka taliya waxaa lagu magacaabaa Xasan Balqiya. Suldaan Xasan wuxuu ku jiraa dadka ugu taajirsan caalamka. sanadii 2018 hantidiisa waxay gaadhay 20 bilyan oo doolarka Mareykanka. wadanka Brunei waa wadan islaam ah. qiyaastii dadka ku nool waxay gaarayaan 439,336. baaxadda dalka Brunei waxay gaaraysaa 5,765 kilomitir square. caasimadda dalka Brunei waxaa lagu magacaabaa Bandar Seri Begawan. madaxtooyada ugu quruxda badan caalamka waxa ay ku taalaa dalka Brunei, waana qasriga uu ku nool yahay suldaanka dalka Brunei. barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.